السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal aad u kooban balse macluumaad muhiim ah xambaarsan maanta waxaan idin la wadaagi doonaa qaabka YouTube-ka iyo Google search engine-ka wax ugu baari karto ama natiijada waxay aad baartay aad u filter gareyn karto ama aad u shaandhayn karto waliba qaabka ugu wanaagsan okay haddii aan ku horeeyo YouTube-ka mar walba aad wax ka raadinayso marka aad wax raadiso oo aad tusaalahan search engine-ka wax ku qorto anuu tusaalahan programming ayaan ku qoray sabab aragtaan waxa soo natiijo ayuu ii soo saaray YouTube-ka balse imika waxaan rabaa tusaalahan sida imika muuqata qaarkood waa 2 sano ka hor sida date ka muuqata kan oo kale imika waa 2 sano ka hor muuqaalkaasi kan waa sanad ka hor marka aan rabo date-ko kale inaan bedelo ama aan ka dhigo search engine-ka YouTube-ka waxa uu ii soo saarayo channels kaliya inaan ka dhigo marka aan rabo waxaan dooran doonaa qaybtan halka filterka ugu qoran tahay soo kale mobile application-ka aad isticmaalayso shaashada ayaan ku soo dhigi doonaa halka taabanayso filterkan ayaan taaban doonaa filterka marka taabto marka waxay siin doonaa optionno aad u badan imika tusaalahan qaybtan section-kan wuxuu leeyahay waa xilliga la soo upload gareeyay muuqaal maanta la soo upload gareeyay haddaan today taabto waxay soo dhigi doonaa muuqaaladii maanta la soo geliyay weekii ugu dambeeyay kuwii la soo geliyay kuwii bishii ugu dambeysay la soo geliyay iyo kuwii sanadkan gudihiisa la soo geliyay soo kale type-ko kale hadaad eegtaan ma waxaad doonaysaa buu leeyahay video tusaalahan channel haddaan taabto waxay soo dhigi doonaa channelada kaliya oo imika haddaan channelka kale aan tijaabiyo macluumaadka ugu badan ay soo saari doonaan waxay noqon doonaan channelska saa aragtaan waxa soo channela oo programming ah ayuu ii soo dhigay marka qaabkan marka aad u raadinayso marka aad ku fududaanaysaa in aad YouTube-ka ka hesho channelada aad programming ka baran karto kuwa graphic design-ka aad ka baran karto iyo kuwa xataa maxay hacking-ka ama waxyaabada wax gaar ah aad ka baran karto waxay doonto baa noqoto English baa noqdo haduu doonay soo kale qaybtan duration-ka ayuu leeyahay tusaale haddii aad neceb tahay muuqaalada aad ku dhaadheer halkan ayaad ka dooran kartaa muuqaalada kolba wuxuu ku leeyahay under 4 minute waxa weeyaan oo muuqaalada 4 minute iyo wixii ka yara soo kale haddii aad taabato 4-20gaasi waxa weeyaan muuqaalada 4 minute iyo wixii ka badan ilaa 20 minute haddii aad qaybtan hoose taabatan wuxuu ku leeyahay muuqaalada 20 minute ka badan ayuu kuu soo dhigi doonaa soo kale halkan waxaad ka daawan kartaa featureska muuqaalada waxay yihiin marka aad shaashada sida kaaga muuqata waxyaabahan oo dhan ay tijaabin kartaa waxay ku noqonaysaa waxaad noqonaysaa qof si khatar ama professional YouTube-ka wax ugu baari kara wuxuu rabana ka soo heli kara okay markan waxaan isleeyaynaa Google search engine-ka isagana soo kale marka aad wax ku baarayso wax laga yaabaa marka ugu horeysa inuu kuu soo dhigo waxyaabo sanad ka hor la soo dhigay 2 sano ka hor qaarkood inay yihiin laga yaabaa inuu adigu kuu soo dhigo marka aad maxay search engine-ka wixii aad doonaysaa ku qorto result-ka kuu soo saaro waxaad taabanaysaa halkan tools-ka ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa marka taabato halkan ayaa kaaga soo bixi doona 2 option ayaa halka kaaga soo bixi doona tusaale marka time-ko kale inaad xadida doonayso halkan ayaa taabanaysaa imika wuxuu leeyahay anytime marka waxaad ka dhigi kartaa past hour ayaad ka dhigi kartaa waxaad ka dhigi kartaa 24 hours ugu dambeeyay imika 24 hours ugu dambeeyay hadii aan doorano waxa noo soo bixi doonta waxyaabihii ama artikaladii la soo post gareeyay 24 saacadood ugu dambeeyay tusaale imika halkan waxa ka muuqata 9 hours yani 18 hours ago marka wuxuu ku soo dhigi doonaa artikalada saacadii ugu dambeeyay la soo qoray tusaalahan haddii aad tahay qof forex-ka kale ku shaqeysta isla markaana raba inuu ogaado wararkii ugu dambeeyay suuqaasi 24 saac ugu dambeeyay wixii dhacay waxyaabaha la filayo oo kale qaabkan ayaad ku raadin kartaa yani marka aad doonayso waxyaabo degdeg ah ama 24 saacadood ugu dambeeyay inaad macluumaad ka hesho waxyaabo gaar ah ama specific marka aad raadinayso waxyaabihii laga yiri ama laga qoray intaas ayaan kusoo koobi doonaa saaxiibayaal muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar soo kana asxaabtaada la wadaag haddii aad nagu soo biir fikirkaagana waa ii muhiim commentiga iigu reeb soo kale shaashada imika 4 muuqaal kaaga soo muuqda labada sare midna waxaan kaga hadlay YouTube channelska aad ka baran karto programming-ka halka midka kale dhinaca midig xigana aan kaga hadlay sida ugu fudud ee Google-ka aad wax ugu baari karto ama sida si professional ah Google search engine-ka wax ugu baari karto muuqaalkan kan xiga inta ku kulmayno wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh